Falanqaynteena maanta ee ciyaarahana waxaan ku eegi doonaa kulanka xiisaha leh ee galabta u dhaxeeya ama caawa fiidka kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Markaa maanta waxaa ciyaaraya saddexdii kooxood ee isku eryanaya hogaaminta horyaalka. Laba ka mid iyaga ballansan oo is haleelaya halka kooxda Liverpool lafteeduna ay is haleeli doonaan kooxda Brighton oo iyaduna aan hawl yarayn. Waxaan eegi doonaa bal xogtii u dambeysay iyo kulmadii u dambeeyay labada kooxood ee Arsenal iyo Man City sida ay ahaayeen. Manchester ayaa badisay 8 kulan ee isku xigay ee gurigeeda Etihad Stadium ay kula ciyaarto kooxda Arsenal. Arsenal 2016 ayay barbarholo gashay kooxda Man City, laakiin kooxda Arsenal waxay guuleysatay sanadkan. Kooxda Arsenal ayaa lugtii hore xilli ciyaareedkan garoonka Emirates 1 gool iyo wax uga badisay kooxda Manchester City. Sidoo kale haddii aan yar ku darno taariikhayada lafteeda kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal ayaa waxay markii ugu horeysay 2 kulan oo isku xiga oo horyaalka ka badisay kooxda Man City 2007 2008, laakiin intii wixii ka dambeeyay waxa gacanta sare lahayd kooxda Man City. Meelaha kale ee aynu ka eegi karno waxa kamid ah ciyaaryahanada qaarkood. Waxaan eegi karnaa ciyaaryahanada ay ka mid yihiin Rodri iyo Rice oo labadooduba haddii aynu eegno xilli ciyaareedkan wax dhaleen 6 gool min 5 caawimaadna way sameeyeen. Marka xagga aad bay iskaga dhow yihiin. Ninka Rodri la yiraahdo inuu aad u fiican yahay waxaa ka maqaartaya 365 maalmood hal game ama hal ciyaar ma uu lumin isagoo u ciyaaraya xulka qarankiisa ama kooxda dhanka dhaawacyada eegno kooxda Man City waxa la xaqiijiyay inay maqnaan doonaan oo ay kula ka ciyaari doonaan labada difaac ee xulka England ee John Stones iyo Kyle Walker. Labadooduba waxay ka baxeen ciyaarta u dhaxaysa Arsenal iyo Man City. Dhanka Arsenal dhaawacyada haddii aan eegno iyada wax weyn ma jiraan, laakiin xalay xilli dambe ayaa wax la soo sheegay in Saka aanu ciyaari karin kulanka inkastoo weli war rasmi ah aanu ahayn. Marka haddii kooxda Arsenal lafteeda Saka ka maqnaa dhibaatay ku tahay, marka adigu kulankaasi waxa la filayaa galabta inuu kulan weyn noqdo oo u dhaxeeya laba kooxood oo ku hirdamaya qaadista horyaalka Premier League ee sanadkan. Arsenal haddii ay galabta laga badiyo waxay u muuqataa in Man City sideedii ay halkii markay soo gaari jirtay ay koobkan la caraabi doonto. Declan Rice hadda wuxuu yiri labada kooxood waa laba kooxood oo ciyaaryahanno fiican haysta aad u adag kubaddoodu mucjiso tahay. Marka wuxuu yiri anagu waxba reeban mayno kulankaasina waanu ku dagaalami doonaa ilaa aanu dhibcaha qaadno. Marka bal isaga hadalkiisaasna waynu eegi doonaa maxaad si adigu fili doontaa kulankaas inuu ku soo dhamaan doono.